waa live trading keeni maanta oo Monday 21 July waana trade kii labaad halkan suuqa ka baagaranay asalkeena waa 35 bib targetkeena waa 65 bib TB1 keena waa 25 bib trade kii noogu horeeyay isagana isla baa suuqa u galnay sida arkaysaan waa kan meeshan ka qaadanay 23 bib markuu noo gaaray waan ku break fan garanay faa'iidana qayb ka xiranay maadaama Monday-ga aanu suuqu dhaqaaq fiican sameeyeen ugu dambeeyna suuqu uu nagu soo laabtay break fan buu naga saaray marka trade-ka sida u manage garanay insha Allah midkan baad ku jirnaa oo sala arki doonaa insha Allah trade-kan waxa uu ku dhamaado sida arkaysaan hadda candle-kii koowaad uu xirmay oo 15 minute-ka new candle furmay marka waxaanu ka rabnaa insha Allah isagana inuu week qaato kadibna uu yaraan uu TB1 kana gaarsiiyo alxamdulillah ugu dambeyn sida arkaysaan intii ay sheegan baa dhacday candle-ka week buu soo qaatay kadibna TB1-kii wuu na keenay alxamdulillah si fiican buu noogu soo dhaqaaqay marka still laakiin suuqan waa riski oo waxa way dhaqaaq fiican male marka gawaanba trade-kan halkan baa insha Allah uga bixi doonaa oo aan ku close gareyn doonaa 25 bib TB1-ka faa'iidana si full ah u xiran doonaa taasoo ka dhigan maanta labada trade aan galnay iyadoo suuqa isku xun yahay guud ahaan waxaan ka helnay 48 bib nabadgelyo